السلام عليكم صاحبيال muuqaalkan waa uu ka duwanaan doonaa saaxiibayaal muuqaaladii aan horadii la wadaagi jiray muuqaaladii aan hore wadaagi jirnay saaxiibayaal waxaynu isla aadi jirnay shaashada kombiyuutarka ama shaashada telefoonka balse saaxiibayaal muuqaalkan markii u horeysay waxaynu isla aadi doonaa qalin iyo waraaq waxaa saaxiibayaal muuqaalkan kaga jawaabi doonaa su-aal muhiima oo dhowr jeer iyo weliba marar badan aad soo weydiiseen su-aashan ayaa ah saaxiibayaal haddii aan u baahnahay in aan channel cusub oo YouTube ah bilaabo waqtigan aan hadda joogno oo 2023 sidee ayaan yeelaa ama qaabkee ayaan maraa waxaan idila wadaagayaa saaxiibayaal kadib 4 sano oo aan ku jiray aaladda YouTube weliba si gaara 2 sano u dambeeyay iyo barkii oo aan si serious ugu jiray aaladdan 6 qodob oo aan khibrad ahaan ka helay aaladdan 6 qodob saaxiibayaal kuma qotomaan kaliya ta khibradayda balse sidoo kale baaritaan aan sameeyay markii aan muuqaalkan prepare gareynayay waxaan idila wadaagi doonaa muuqaalkan 6 qodob oo haddii aan anigu maanta u baahdo inaan channel cusub oo YouTube ah bilaabo aan mari lahaa saaxiib kasta oo inagu xidhan oo inuu ku fakarayay amaba islahaa samee YouTube channel muuqaalkan wuxuu idin suuro gelinayaa amaba uu u suuro gelinayaa inuu helo dhammaan waxa uu u baahan yahay in uu yeelo si uu YouTube channel u sameeyo haddaba saaxiibayaal inagoon ku dheeraanin aynu isla aragno bal qodobadaas waxay yihiin saaxiibayaal qodobada halkan ayaan inoogu qoray waxaan marka koowaad ka cudur daaranayaa kaamirada shaashada kombiyuutarka inoo duubaysaa inaysan waraaqda oo dhammaystiran inoo wada qabanaynin marka marba intaa aynu u baahannahay in aynu ka hadallo ayaynu ku beeganaynaa kaamirada waraaqdan oo dhammaystiran oo aan sawir ka qaadana waxaan soo gelin doonaa telegram channelkeena linkiga telegram channelkeenu sidaynu caadada u yaala muuqaalka qaybtiisa hoose أنا نمنا هذا بس عبير هالكلام هذا بس عبير قدر ككوبات هذا ربطنا channel عصب أو يوتيوب بس ما يسوق جوليستا وحويه وإن عن مركبة بلا هذا channel كا وحويه سحبير break the barrier وحويه وتشبي جدار كهور تاجن إن عن نقطة مقال سمية وحتى سحبير أصحاب دورة أقصو ودينسا سيدا يوتيوب channel كسمية سيدا يوتيوب سحبير تلابد كوبات وقفل بتهين وقاعدة وحويه inuu marka koobaad sameeyo YouTube channel muuqaalana soo geliyo markaas ayay macna yeelanaysaa su'aasha ah sidee u sameeyaa YouTube channel yani horumar u gaarsiiya saaxiibada hadaba talaabada koobaad ee aad tahay inaad qaado haddii inuu aad ku fikirayso inaad channel YouTube sameysaa waxa weeye waa markaaba samee channelka waxa weeye waxa dad badan dib u hayaa waa ficil la'aanta saaxiibayaal iyo sidoo kale shaygii oo isbarkanaya oo isbiirsanaya uu u arkayo caqabad weyn هذا بس صاحب التلابد كوبات القانصة حوية وبريك ذا بارير وإن تشبيسو جدارك أما تكجدوبت وحكاه ارتاجن إن المركبة نقطة مقال سمية أما يوتيوبر وحدة كوي قانين هذا بس صاحب التلابد هو رسالة قانصة حوية وإن channel كسميسو سدوا كله لوجو إيه مقعد وحيابي وبهنايا أساسيات كسميسو صدح مقال للسوق لسو صاحب يال تطوات كوه الريا وحدية لكرتا إن تصدح مقال السوق لسو وchannel كسمية waxyaabo u baahnaa samaysa magac inaad u bixiso looga saarto wax la midka kadibna saddex muuqaal soo gali maxaan saaxiibayaal u leeyahay channel markaaba samee sababtan ku leeyahay saaxiibayaal wax kale maaha noqo marka hore YouTuber ama inaad aaladda soo gasho intaa kadib raadi sidii aad u horumarin lahayd balse saaxiibayaal idinkoo ama qofka isagoo aan samayninba YouTube inuu yidhaahdo sidee YouTube u sameeya ama sidaa gaarsiisani ma aha shay yani dee tallaabo maad qaadin markaa saaxiibayaal tallaabada horeysay inaad qaadaa waa break the barrier it's not like xitaa ifan saaxiibayaal waxaan anigu idiin sheegayo haddii aad daawataan muuqaalo fara badan oo YouTube-ka oo ka hadlaya qodobkan waa qodob inta ugu badan la isla qaato inuu qofku markaba bilaabo ugu yaraanna uu 3 muuqaal soo geliyo meelaha qaar waxaa laga yaabaa inaad ku aragto 5 muuqaal soo geli iyo wax la mid ah muuqaalo inaad soo gelisaa saaxiibayaal waxay kuu train garaynaysaa inaad already u diyaar tahay inaad shaqadii qabato laakiin aad u baahantahay wixii kale ku hagi lahaa ama talooyin ahaa ama ku saabsan haddaad is leedahay muuqaaladan sameynaya waa maxay waxay noqon karaan saaxiibayaal saddexda muuqaalaad sameynaysaa muuqaalada kuugu fudud ee aad sameyn karto marka tallaabada horeeya waxa weeye saaxiibayaal waa break the barrier in aad jabiso gidaarka amaba aad ka gudubto waxa kaa hortaagan inaad noqoto markaa qofka aad rabto oo ah inaad YouTuber noqoto waa inaad channelkii samayso muuqaaladiina soo geliso hadda markaad ruulka koobaad qaadato dhammaan qodobada kale aan tilmaami doono oo dhami macna ayay kuu sameynayaan ama waxaad la imaan karto haddii aanad qodobkan la imanin saaxiibayaal
waxa uu noqonayaa un wax aad qaadatay ama wax aad maqashay. marka kaasi waa qodobka koobaad. haddana qodobka labaad saaxiibayaal ku beegano kamarada waxa weeye waa find the type of content. waxa weeye waa toddobaadkii koobaad saaxiibayaal channelkii baad samaysay, magacii baad u samaysay, 3 muuqaal baad soo gelisay. waxaad hadda kasoo gudubtay xandaabkii amaba wixii kaa hortaagnaa inaad markaa noqoto qofkii aad rabtay inaad noqoto oo ah muuqaal sameeye ama youtuber. tallaabada labaad saaxiibayaal ee haddaba ay tahay inaad qaadda waxa weeye waa inaad doorato mawaadiicdii aad kaga hadli lahayd youtube channelkaaga. waxaad soo samaysay channelkii, waad soo diyaarisay muuqaaladii, waad soo gelisay. hadda waxaad dooranaysaa muuqaaladii aad rabtay inaad kusoo gudbiso. haddaba waxaa jira saaxiibayaal qof kasta waxyaabo dhowra oo kala duwan oo uu ka hadli karo, balse marka la joogo inaad muuqaalo soo gudbiso waxaa jira 2 qodob oo ay tahay in aad ku salayso shayga aad dooranayso in aad soo gudbiso oo dadka la wadaagto. shayga koowaad waxa weeye saaxiibayaal waa inaad ka hadasho amaba soo gudbiso shay aad xiiseynayso ama shay aad danayso ama shay aad jeceshahay inaad daawato, ka hadasho oo aad danayso. waa qodobka koowaad. haddii aad saaxiibayaal garanayso 4-5 mawduuc oo kala duwan oo aad ka hadli karto, waa inaad doorato mawduuca aad ugu xiisaha badan tahay, mawduuca aad ugu jeceshahay. sababtoo ah shayga aad ugu jeceshahay waa shayga ay fududahay in aad mar walba la timaado. ma jiraan caqabado badan amaba cadaadis fara badan oo naftaada kaaga imaanaya oo kaa hor istaagaya inaad shaygii samayso. qodobkaas waa kow. sidoo kale saaxiibayaal shayga aad rabto inaad ka hadasho, qodobka labaad aad ku salaynaysaa waxa weeye waa in shaygan uu jiro aad ogtahay dadka danaynaya. tusaale, haddaad rabto saaxiibayaal inaad ka hadasho mawduuca technology-ga, ood rabto channel cusub oo technology-ga ka hadlaya inaad samayso, waa inaad garanayso dadka daneeya mawduucani xog ku saabsan. tusaale, mawduuc aad rabto inaad ka hadasho dadka daneeya aqoontooda mawduucan ay u leeyihiin intay gaadhsiisan tahay iyo waxyaabahaas. waxay taasi ku suuro gelinaysaa markaad muuqaalka samaynayso in muuqaalkaaga aad u diyaariso dadka aad ugu talagashay in ay fahmi karaan. haddaba saaxiibayaal waxaa laga yaabaa inay adagkaato masalada ah sidee baan ku garan karaa dadka aan rabo inaan muuqaalkayga la wadaago. balse qaabka ugu fudud aad ku garan kartaa waxa weeye haddii aad rabto inaad muuqaalo soo gudbiso, muuqaaladii aad rabtay inaad soo gudbiso aad xiiseynaysay markaad ogaato, waxaad raadin kartaa channelada faraha badan ee youtube-ka ku jira, channel mawaadiicda aad rabto inaad gudbinayso gudbiya. dadna waxaad eegaysaa channelkaas dadka daawada siduu channelkaasi muuqaalada u sameeyo, thumbnailada uu isticmaalo, dadka daawada iyo waxyaabahaas. kadib waxaa kuu fududaanaysa in aad yacni bartilmaameedsan karto ama muuqaaladaada aad u diyaarin karto inay gaari karaan dadka channelkaas daawada. waa qaabka ugu fudud inaad channello youtube-ka ku jira oo mawaadiicda aad rabto inaad ka hadasho ka hadla adeegto dadka ku xidhan, kadibna aad ku fikirto dadkaas inay yihiin dadkaad gaari karto, kadib aad daawato channeladaas ay muuqaalada u sameeyaan, magacyada ama titleka ay siiyaan, ciwaanada, thumbnailska isticmaalaan iyo waxyaabahaas. haddaba haddii saaxiibayaal ay jiraan waxyaabo fara badan oo aad ka hadli karto, aad soo gudbin karto, qodobka koowaad ha noqdo shay aad xiisayso. qodobkaasi aad buu muhiim u yahay. qodobo badan oo aan tilmaami doono soo socdana waad ku arki doontaan. sidoo kale saaxiibayaal mawduuca aad gudbinayso dadka aad rabto inaad la wadaagto waa in aad taqaano. technology baad ka hadlaysaa, technology-gaas waa inaad ogaato dadku aqoontii u leeyihiin, heerka aad aqoontooda gaadhsiisan tahay, sida qof kasta uu muuqaalkaaga u fahmi karo, qofka barbilowga ah, qofka dhexe ama qofka sare, qolada aad bartilmaameedsanayso iyo waxyaaba lamid ah. qodobkaasna waa tallaabada labaad. tallaabada koowaad channelkii baad soo samaysay, tallaabada labaad mawduucii ayaa dooran iyo weliba dadkii danaynayay. mawduucaasna wuxuu noqonayaa mawduuca aad adigu ugu xiisaha badan tahay. saaxiibayaal qodobka saddexaad ee aynu eegi doonaa ee ay tahay inaad la timaada waa goal setting, inaad hadaf samaysato. saaxiibayaal markasta oo qofku youtube-ka la joogo, inta ugu badan marka channel uu qof bilaabo, inta ugu badan hadafkiisu waxa weeye sida aynu intayna badan banahay waa inuu koriyo waxyaabo aan inta badan waxyaabo inta badan ka baxsan awoodiisa. saaxiibayaal marka aad hadaf samaysanayso youtube-kaaga waa inaad ogaato marka koowaad waxa awoodaada ku jira iyo waxa awoodaada ka baxsan. waxaa jira waxyaabo aanad adu waxba ka qaban karin oo ka baxsan awoodaada iyo waxaad adu wax ka qaban karto. waxaa ka mid ah saaxiibayaal subscriberska, daawashada muuqaalada, waxyaabahaas waxyaabo ka baxsan awoodaada. channelkaaga in subscribe la saarayo inaan la saarin maaha wax adiga gacantaada ku jira. sidoo kale in muuqaaladaada la daawadayo inaan la daawanin maaha adiga wax gacantaada ku jira. taas awgeed marka aad channel bilaabayso waa in aanu hadafkaagu noqonin numberska, how many subscribers, how many inta la daawanayo muuqaaladaada iyo waxyaabahaas. sababtoo waxyaabahaas ma maamushid.
balse waxyaabaha hadafka ka dhiganaysa waxaa ka mid ah in aad adigu muuqaalada aad samaynayso sida ugu fiican u samaysid, in muuqaalada aad adigu samaynayso aad sida ugu wanaagsan dadka la wadaagtid. waxaa jira saaxiibayaal YouTube wuxuu leeyahay qaybta analyticska oo qofku ka ogaanayo xog fara badan oo channelka iyo muuqaalada sida loo daawanayo iyo waxyaabahaas ku saabsan. haddaba mar kasta oo aad analyticska YouTube-ka eegayso oo ay muhiim tahay inaad isticmaasho, inkastoo analyticsku inta channelku cusub yahay aanu subscribers fara badan helin, analyticsku aanu xog saxa ku siinaynin. analyticska marka channel muuqaalada 100 qof ama 1000 qof daawanayaan uu macno leeyahay. haddana markaad analyticska eegayso YouTube-ka waa inaanad inta badan subscriberska iyo saacadaha iyo waxyaabaha ka mashquulin, balse waa inuu hadafkaagu adiga noqdo muuqaaladaad sameynaysay ma la daawaday, intee la daawaday, muuqaalada miyay ku jiraan waxyaaba aan fududaynaynin in la daawado, muuqaalada miyay jiraan meelo uu liito. marka hadafka markaad samaynayso waa inaad marka u horeysa hadafkaaga ka dhigato waxyaabaha aad adigu saameynayso. waana runtii wax jira markastoo channelada YouTube ku weynaadaan, waa markasta oo qofka channelka muuqaalada soo geliya uusan qiimeynin subscriberska. sababta waxa weeye waa shay ka baxsan awooddaada. waxaad arkaysaa hoos ay u dhacayaan, waxaad arkaysaa kor ay u kacayaan, waxaad arkaysaa maray istaagayaan. marka maaha wax adiga gacantaada ku jira, laakiin adiga waxa gacantaada ku jira waxa weeye in muuqaalada aad samaynayso aad ka dhigto muuqaalada ugu xiisaha badan, aad ka dhigto muuqaala aad time fara badan diyaarintooda waxyaabahooda aad gelayso. marka markasta haddii aan subscribers fara badan aanad helin, micnaheedu maaha in muuqaaladaad hooseeyaan. marka la saaxiibayaal ma maamshid micnaheedu maaha dee subscriberska waa dee kori waayaan, laakiin waxaan ka jeedaa damoor aad adigu dadaasho muuqaalada ugu fiican soo saarto waa damoor subscriberska iyo waxyaabaha nina korayaan. laakiin mar walba adigu waxaad awoodi gelin karto ee aad maamuli karto ee aad saameyntooda saameyn ku yeelan kartaa waxa weeye waa qaybta muuqaalada aad samaynayso la xidhiidha. laakiin numberska sida subscriberska saacadaha la daawanayo waa wax ka baxsan awooddaada. marka taana waa inaad ogaato oo waa in aanay noqonin shay aad ku qiimeyso yacni waxqabadkaaga. laakiinse markasta oo aad si wacan wax u qabato, markasta oo muuqaalo fiican soo gudbiso, waa markasta oo numberskaasina ay korayaan. haddaba saaxiibayaal waxaan soo tilmaamay qodobkii koowaad oo ahaa barrierka ama caqabada ka hortaagan inaad muuqaal sameeyo noqoto ka gudub. qodobka labaad oo ah dooro muuqaalada aad rabto inaad ka hadasho oo aad ku salaynayso waxyaabaha aad ugu xisaab badantahay, sidoo kalena aad dadka sida ugu wacan ula wadaagi karto. iyo marka labaad oo ah inaad taqaano dadka aad rabto inaad wax la wadaagto iyo mawduuc aad rabto inaad la wadaagto inaad wax ka garanayso. qodobka saddexaad waxaan saaxiibayaal marka aad channelka bilowdo ee aad muuqaal soo geliso, inta ugu badan dadku marka cusub yihiin waxay aad u eegaan subscriberska, followerska, inta saacadooda la daawanayo. kadib haddii waxyaabahaas hooseeyaan qofku wuxuu dareemaa yacni in waxa laga yaabaa inuu give up sameeyo oo faraha ka qaado. marka waa inaad ogaato these numberadaani keliyaata waxay kuu sheegayaan adigu shaqadii aad qabanaysa inaad si wacan u haysa iyo inaanad u hayn. marka iyagu maaha waxaad focuska saarayso, laakiin waxaad adigu focuska saaraysaa waa muuqaalada aad gudbinayso, waana in kuwa un aad ku dadaasho maadaama kuwaas yihiin kuwa aad wax ka bedeli karto. saaxiibayaal qodobka afraad ee aynu doonayno inaynu ka hadalno waxa la yidhahdaa consistency. okay, qodobka afraad saaxiibayaal ee aynu doonayno inaynu ka hadalno waxa la yidhahdaa consistency. waa inaad la timaado joogteen yacni marka aad samaynayso. saaxiibayaal inaad YouTube soo gasho maaha micnaheedu inaad markaba guul ka gaadhayso. haddaad hore guul uga gaadhi weydana ma aha micnaheedu inay tahay inaad faraha ka qaado ama aad ku khasaartay. haddii aad eegto saaxiibayaal channelada ugu waaweyn maanta ee yacni technology-ga ama channelada ugu waaweyn ee YouTube-ka, waxaad arkaysaa channel kasta markii la bilaabay inay qofkii muuqaal sameeyaha ama channelka ka dambeeyay muuqaalada soo gelinayay ay ku qaadatay waqti inuu channelkiisu micno yeesho, in channelkiisa dad fara badan kusoo xidhmaan iyo inuu channelkiisa dhaqaale ka sameeyaba. haddaba waa inaad ogaato in loo baahan yahay inaad joogtayso muuqaalada. joogtayntaana saaxiibayaal waxaa kaa caawinaya qodob aan mar horena idin tilmaamay idinna sheegay inuu dib inagu soo laaban doono oo ah inaad marka horeba ka hadasho waxyaaba aad xiiseyso. saaxiibayaal hadda channelada ugu waaweyn ee technology-ga mid ka mid ah qofkii channelka lahaa in channelkiisu ay dad kusoo xidhmaan oo uu dhaqaale ka sameeyaa waxay ku qaadatay inuu sameeyo 100 video in ka badan. channel kale waxay ku qaadatay 300 oo video in ka badan, halkii channel kale ku qaadatay 90 video. saaxiibayaal channelka Somali Tech inuu shuruudaha YouTube buuxiyo ee dhaqaale ka sameynta waxay ku qaadatay in ka badan 200 oo video in la soo geliyay. waa 200 oo video almost 2 sanana way ku dhawaatay. haddaba saaxiibayaal inaad joogtayso
oo aad socoto oo aad noqoto qofka gaadha hadafkiisa waxa kaa caawinaya waa inaad ka hadasho wax aad xiiseynayso wax marka aad samaynayso aad danaynayso oo aanay jirin caqabad amaba cadaadis kaaga imanaya naftaada oo ay diidayso marka koowaad si aad joogteen ula timaado marka horeba shay aad ku raaxaysanayso marka aad samaynayso shay aanay naftaadu dhibsanaynin waa inaad ka hadasho marka waan idiin tilmaamay mawduuc aad ugu xiisaha badan tahay isleedahayna dadka sida ugu fiican baad ugu gudbin doontaa ka hadal qodobka labaad saaxiibayaal ee muhiimka tahay weeye waa inaad ogaato in aad YouTube guuleysta soo saarta in ay waqti qaadanayso haddii aad saaxiibayaal eegtaan channelada ugu waaweyn ee maanta technology-ga mid ka mid ah waxaa la yidhaahdaa Mr. Booster Boss saaxiibayaal channelkaas waxaa jira qofka iska dambeeya oo loo yaqaano Aaron waxaa jira muuqaal uu leeyahay oo uu kaga hadlayo marka uu channelka bilaabayay waxay ku qaadatay saaxiibayaal in ku dhow 300 oo video in uu channelkiisu guul gaadho ama uu dhaqaale ka sameeyo waxay ku qaadatay in ku dhow 5 sano in channelkiisu uu micno yeesho oo uu dhaqaale sameeyo maantana channelkiisu wuxuu ka mid yahay 3 channel ee technology marka la joogo ugu weyn haddaba saaxiib waxaan soo qaadanaya wax kale maaha in channel guuleysta aad soo saartaa waxay qaadanaysaa waqti in wax micno la soo saaraa marka horebana sida caadiga waqti bay qaadataa marka saaxiib waa inaad ogaato in loo baahan yahay inaad joogtayso oo aysan ahayn inaad hore faraha uga qaado horena u rajayso natiijo waa suura saaxiibayaal oo qof walba khibrad gaara buu leeyahay channelada qaar waqti yar bay guul ku keenaan channelada qaar waqti dheer bay ku qaadataa iyadoo mid walbana ay ku xiran tahay marka xaaladda uu la dhayal karaynayo mawduucu ka hadlayo iyo waqtigu soo galayba yani platformka taas iyadoo jirto haddana midda ugu muhiimsan waxa weeye in muhiim tahay consistency inaad joogtayso muuqaalada aad samaystaan waxa ka caawinaya mawduuc aad ka hadlayso aad xiiseynayso iyo inaad ogaato inay waqti qaadanayso saaxiibayaal afartaa qodob ayaan tilmaamay waxay kuu suuro gelinayaan in aad soo saarto amaba inaad samayso channel guuleystay haddaan dib soo raaco waa qodobkii koowaad oo ahaa break the barrier jabi inaad ka gudubto waxa kaa hortaagan qodobkii labaad oo ahaa inaad doorato mawduucyada aad ka hadlayso iyo sidoo kale saaxiibayaal qodobkii saddexaad oo ahaa goal setting markaad goolasha amaba aad qiimeynayso inaanad ku qiimanin waxyaabaha ka baxsan awoodaada yani markaad wax hagajaysanayso qodobka afraad waxaanu sheegnay consistency halkan waxaa noo yaala saaxiibayaal laba qodob oo kale oo kaa caawinaya ayagu muuqaal la samaynta markaad qodobada hore la timaado waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto haddaba sidee baad muuqaaladii u samayn lahayd muuqaaladaas soo saaraysaa waa noocma marka labadan qodob ee kale waxay kaa caawinayaan inaad muuqaalada markaad samaynayso qodobka koowaad waxa weeye waa sida ama how to plan your video sidee baad u qorsheynaysaa ama aad u samaynaysaa muuqaalada markaad muuqaalada u baahan tahay saaxiibayaal inaad samayso tallaabada horeysa waxa weeye waa make research waa inaad baaritaan samayso haddaad ka hadasho masalan kubadda ama sportiska waad muuqaala doonaysa inaad samayso waa inaad intaanad muuqaal ka hor samaynin aad baaritaan samayso ogaato wararkii ugu dambeeyey kubadda ama sportiska ku saabsanaa iyo waxyaaba lamid ah haddaad technology ka hadlayso waa inay marka hore website-yada technology ka hadla youtube-ada kale ee technology ka hadla waxyaabahaas oo dhan waa inay marka hore yihiin wax kuu diyaara inta aanad muuqaal samaynin waa inaad research samayso waa inaad topic raadiso waa in wax dadka ku daawanaya xiiseynayaan raadiso sababtoo ah markastoo aad research samayso waa markastoo aad wax fiican soo heli karayso waana markastoo aad ixtiraamayso xitaa dadka ku daawanaya oo aad waqti gelinayso wixii aad la wadaagi lahayd halka intaad marka hore iska doorato aad muuqaalka soo gelin lahayd marka tallaabada koowaadi waa make research saaxiibayaal inta aanad dooranin mawduuc aad ka hadlayso midda labaad waxa weeye saaxiibayaal keep in mind the people you wanna yani waa inaad niyadda ku hayso dadka aad wax la wadaagayso damar saaxiibayaal inta badan markaynu muuqaal soo gudbino saaxiibayaal ee youtube kasoo dhigno mostly waxaynu aragnaa views subscriber saacadaha la daawaday waxyaabahaas saaxiibayaal waa numbers like subscriberska 1000 4000 20000 haddaba saaxiibayaal marar badan haddaad nambaradan u fiirsato waxaa dhacaysa in aad ilowdo dadka saxda ah sababtoo ah reportkan lagu siinayo ama analyticskan waxaad arkaysaa ma aha yani qof xitaa qofku ma aha hal unit oo ka tirsan marka markastoo aad mawduuc diyaarinayso haddaad niyadda ku hayso yani viewska iyo waxyaabahan inaysan numbers ahayn laakiin in dad caadi iyo xogtaada daawanayaan oo dad caadi aad xog gudbinayso waa markastoo markaad muuqaalkaaga qorsheynayso in muuqaalkaagu noqonayo muuqaal fiican waayo marar badan saaxiibayaal adigoo laga yaabo inaad waxyaabo kale ku biisi garaysantay amaba degdeg amaba mawduuci ayaad dooranayso marka aad diyaarinayso yani waxaa kuu fudud inaad ilowdo dad inay ku daawanayaan
dadka ku daawan doona. marka saaxiibayaal waa inaad markaad mowduuc ka hadlayso aad niyadda ku hayso dadka ku daawanaya si aad yacni sida ugu fudud mowduuc aad u heliso sida ugu fududna ugu gudbiso. marka waxa weeye waa how to waa sad muuqaal qorshayso research samee topic fara badan markay kusoo baxaan topic ka dooro topic markaad qorsheynayso qaabkaad u gudbinayso waa inaad niyadda ku hayso in ay dadku daawanayaan. okay qodobka lixaad saaxiibayaal waxa weeye waa improving videos. waxa weeye waa inaad horumariso muuqaalada aad soo gudbinayso. haddaba saaxiibayaal mid ka mid ah waxyaabaha kaa caawinaya inaad yacni maadaama youtube-ka wadayso waqti dheer inaad horumar ka gaadho waxa weeye waa in aad yacni muuqaalada iyo xogaad soo gudbinayso si tallaabo aad u horumariso. maxaan uga jeedaa saaxiibayaal haddaad imika channelkeenan aad eegto sanadkan 2023 muuqaaladeen soo gelino ee sanadka hore 2022 muuqaaladeen soo gelinayna waxaad ku arkaysaa farqi u dhaxeeya sanadkii 2021 muuqaaladeen soo gelinay haddaad eegto farqi u dhaxeeya arkaysaa. waxaan uga jeedaa si aad yacni horumar u gaadho yacni mar kaliya ta channelka aad bilowday yacni muuqaalada ugu fiican kuma samayn kartid. marka waa inaad yeelato qorshe ah inaad si tallaabo muuqaalada u horumariso inaad mar walba wax cusub tijaabiso inaad yacni backgroundka amaba wax invest garayso in haddii channelku dhaqaale kuu soo xareeyo aad dhaqaalaha qayb ka mid ah channelka dib ugu celiso haddii ay tahay inaad studioga hagaajisanayso haddii ay tahay equipment ama inaad camera ama microphone ama waxyaabo noocaas inaad soo iibsanayso si yacni aad ugu maalgashato iyo waxyaabo noocaas ah. marka qodobkan waxa weeye waa inaad si tallaabo u horumariso waa inaad muuqaaladaada wax kusoo kordhiso eegta inay kuu shaqaynayaan kadibna hadday kuu shaqeeyaan wixii kuu shaqeeye wixii kalena aad ka tagto. qodobkaasna saaxiibayaal waa horumarinta. haddaba saaxiibayaal labadan qodob ee dambe waxay la xidhiidhaan muuqaal samaynta. qodobkan waa sad muuqaalka u helayso fikradda muuqaalka ku helayso markaad muuqaalka diyaarinayso inaad niyadda ku hayso in ku daawan doonaan dad iyo weliba dadka ku daawan doona. qodobka u dambeeya waxa weeye saaxiibayaal dadka ku daawan doona sida fahansiinahay. qodobka u dambeeyna saaxiibayaal waxa weeye waxa weeye waa inaad si tallaabo aad muuqaaladaada u horumariso oo marba haddaad wax kusoo kordhin karto kusoo kordhiso wixii kuu shaqeeye wixii aan kuu shaqaynayna aad ka saarto. haddaba saaxiibayaal guud ahaan 6 qodob ayaa aniga intii khibradayda aan u arkay inay yihiin qodobada haddii aad raacdo aad ku samayn karto channel guuleysta 2023 haddii aan waqtigan bilaabo channel qodobadan ayaan raaci lahaa. qodobadan saaxiibayaal waa qaar ku tiirsan يعني أنا خبرتي عن يوتيوب كهلي يقولوا لي باريتان عن سمية أو حاجة فربنا هذه وحي عن السر مهم أو عن أركين يعني كل صدره صاحب يلسان هوري كنت المعمي سوي جود وعن كقاضي وراقن أو حاجة أدوين وحنسوق من دونها تلجرام channel كينا وحي السؤال يكون سامسون قطع بدن قيبت الكومنت جاي مقال كنا يدينو سوقر كتان سوق التلجرام channel كينا وينو سوقر كتان تلجرام جروب كينا discussing كينو كسميننا وينو سوقر كتان صاحب المقال كنا كنا ينقص ميريا وحرجينا إنه وحدين فايدين أو غيران عاد حكى فايدين إن مقال كان وحلي حريري مقال كان هوري وسوقنا يوتيوب كقصة بسنة وإحنا رجينا إن لبدا مقال وحدين فايدين صاحب يال هدي مقال كان عاد حكى فايدين مقال كان لايك سارة سألت يوتيوب مقال كان يدد بدنا نقارسيسو إننا كنا عينوه مقاطع إن مقال كان وحدين فايدين أصحابت عن هوري نوجو حنين يو أردت مستقبل كان وحدين فايدين سنة waxaan rajeynaynaa ama buu soo jeedin lahayn inay ka mid noqoto asxaabta channelka ku xidhan. soo kale saaxiibayaal muuqaalkan uga faa'iideeya haddii jiraan asxaab aad ogtiin inay ku fakarayeen inay mar u noqdaan muuqaal sameeyayaal ama dadka youtuberska loo yaqaano. inta muuqaalkan ka xigaan ku kulmi doono saaxiibayaal aniga idinka baa xidhi rajeynaya khayr wassalaamu calaykum.